كدنت رحمانتي جاي جودا ودعان كما يلي مايان كسيكا قعسري قد كذا قلت بيكو قبايا وشي غالي بوشا بوشا وشي غالي كسيكا قعسري قد كذا قلت بيكو قبايا وشي غالي بوشا بوشا وشي غالي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسنا خيرتي داودياشا qiimaha iyo qadarinta laga mudan meel kasto caalamka guudkiisa naga daawasaan ku soo dhawaada barnaamij cusub oo aan ku daafuri doono shirkadda cusub ee la yiraahdo San Factory oo ka mid ah shirkadda calaamadaha wadooyinka u sameyn doonta Somaliland daawadayaal sida aad arkaysaan calaamadahan iga dambeeya waxay astaamo u yihiin heer caalami ah wadooyinka ama habka wadamarista وأستامو لغو تلقلي إن لغو قرطو قابك ودوين كلهم مرو وأستان سوماليلان أن نقون دونتا مهم هدي أي كود رقمان وضياشا بابورتو الداو ديال الشركة دون مركي قورسي سوماليلان كبلابتي مشروعا ودوين كالغو سميني وأستامو لغو مرو أي سيدا عدركسان وحاكو قرن ديجنينو أستامهان أي هير عالمية أو ودن كستا أما وقف كستا وأجانب موادين وقرانيا مركو ودودا مريو تصالحان مركن ومركا wadada laga shaqeynayo oo loo baahan yahay baabuurku inuu iska jiro xawaarihiisa baabuurtu inaanay isku dhaafin xawaaraha u sareeya calaamada halka ka muuqata ciyaal iskuulka xilliga iskuulka soo rooxan waxa loo baahan yahay in la iska jiro oo ay baabuurtu aad yar socoto xilliga wadada laga talaabayo oo dadku ay ka talaabayaan in baabuurtu ay ka taxdirto in ay socoto xawaaro dheeraada waxa ka wada halkan inaga muuqda xoolaha meelaha xooluhu ku badan yihiin in baabuurtu ay iska jirto calaamadahan oo aad u tiro badan daawadayaal oo inoo sharax doonaan mas'uuliyiinta shirkadani ayaa shirkadani qaabkan cusub ee calaamadaha Somaliland ugu sameynayso uu noqon doona mid faa'iido weyn u tara Somaliland habka wadamaristeeda dawladda Somaliland daawadayaal sida la socotaan waxay bariyahan dambe ku hawlan tahay sidii ay Somaliland wadooyinkooda ugu horumarin lahayd waxa Somaliland ka socda wadooyin fara badan oo lagu horumarinayo wadooyinka isku xidha gobolada iyo degmooyinka dalka wadooyinka macaasibada dhexdooda magaalooyinka oo ugu muhiimsan tahay wadada magaalada Ceergaabo oo dhismaheeda ay Somaliland hirgelinayso isla markaana shacabweynaha Somaliland ay ka qayb qaadanayaan haddaba waxaan ka wareysanay Sakariye Nuur Cabdilaahi oo ah gudoomiyaha shirkaddan San Factory oo calaamadahan cusub sameynaysa oo xarunteeda haatan aan ku sugannahay waxay noo faahfaahin doonaa sooyaalka taariikheed ee shirkadani waxyaabaha ay qabato iyo waxyaabaha Soomaaliya inuu laamigu uu noqdo hal mid taas weeyaan calaamadan waxay ku tusaysaa oo garan kartaan waxa weeyaan waa airport calaamad ka mid ah calaamadaha airportyada isticmaalaan ama looga isticmaalo ta ka hooseysa ayaduna mid la mid ah oo yaani airportyada ayaa loo isticmaalaa calaamadan crosska ama isku talaabta ah waa dhaqaatiirta ama goobaha caafimaadka ayaa iska leh calaamada ka sareysa waxa weeye calaamada dadka handicapka ama meelaha ay baarkinadooda ama meelaha ay fadhiistaan ama taasi sheegaysaa tan waxay ku tusaysaa gaari xamuul ah
ama aad iyo aad ka muhiimka ah waxa kamid ah iminka jidkan markaanu sahaminta aanu ku soo marnay jidkan isku xidha Berbera iyo Hargeysa meelo ayaa jira sheegan oo macaan ah oo baabuurta ay ku dhacdo badanaa meeshaas waa hal meel hadda jeer dadku waxay yiraahdaan halka jimba digan baa la yiraahdaa laakiin markaan meeshaas aanu soo indhaynay waxa weyn hadda waa meel siliita leh ama baabuurku ka siibto ama baabuurku iyo casrad isku jirta marka calaamadaas aad arkaysan gaariga siliitaynaya ay raadkiisina ka dambeeyo taas ma ugu talagalnay waana hal meel aad bay muhiim tahay calaamadaha ugu muhiimsan wadadaas u baahan tahay calaamadan ayaana calaamad aad iyo aad muhiim ah oo sheegaysa ka digaysa gaariga wadada jidka weyn haysta oo ay tan ka dhigan tahay gaariga jidka soo galaya ee jidka yar ah ay ka digaysaa isla markaana gaarigan wuxuu isagu haysan doonaa stop calaamad stop aba la siinaya inuu afar taayirba mar wada joojiyo calaamadan waad aragteen hadda jeer dhibaatada ka jirta suuqa basleyda oo ah meel kasta iska istaagta ama ha noqoto laamiga bartimihiisa ama ha noqoto meel aan loogu talagelin runtii waxay taasi khusaysaa dawladaha hoose ayaa mandate-ka iskale laakiin waxa weey waxyaabahan u diyaarinay ka shirkad ahaan tan calaamadan iyo calaamado kale oo fara badan ayaa waxay kamid yihiin calaamadaha hadda jeer loo isticmaalo goobaha dekada ama maraakiibtu ku soo xidhaan oo yana runtii aan ugu bishaareyno qoliyaha ka mas'uulka ah dekadaha in ay shirkadda Same Factory ay u soo diyaarisay ama u hayso calaamadaha loo baahan yahay calaamadan waa parking runtii waxa looga baahan yahay goob kasta oo la isku yimaado gaadiidka la dhigto sida hudheelada sida wasaaradaha goobaha sheegan ee dadku wada jeer isku yimaadaan waxay calaamadani ku tusaysaa qof dumar ah oo ilmo yar gacanta hayso la gudbaysa calaamadan kale waxa looga baahan yahay ama lagu sameeyaa ama ay laga taagi doonaa goobaha iskuulada ciyaalka goobaha dadku u badan yihiin ama caruuruhu ay xilliyada rawaxaada iskuulada agtooda aad bay muhiim u tahay oo iskuulka laftiisu ama private ha noqdo ama dawliga ha noqdee inuu muhiim bay u tahay inuu jidka ugu dhow ee caruuruhu ama ciyaalku ama ardaydu uga soo gudbayaan inay ku samaystaan weeyaan ay ku qoran tahay iska jir marka hore waa warning calaamada ay noqoto calaamad saddex gees ah u samaysan sida triangle-ka calaamad kasto triangle waxay ka digay waa digniin iminka taasi waxay ka digaysaa waad arkaysaa gaariga cagta ama taayirka kala dhacay taayirka midig laamiga waa laami jimbi ah ama go'an taasi kaaga digaysaa oo ilaa adu 200 oo mitir ka hor halka ay laamigu saaka yahay bay ku dhacaysaa calaamada ku xigtaa waxa weeyaan waxaad ku arkaysaa neef geela waxay ka turjumaysaa in ay ka dhowdahay goob daaqsin ah ama xoolo ay ku badan yihiin ama hada jeer ay daaqaan sida kaymaha ama kobaha waxa la yiraahdo ta ku xigtaa laba baabuur baa ku sawiran labada baabuur mid baa cross gareysan oo isku talaabta ku dhacday marka waxa weeyaan kama dhaafi kartid inaad bidixda la iskuma dhaafi karo halkan waxa weeyaan wado aan toos loo arkayn oo qalooc ku jiro taasina halkaas ku dhacaysaa waxaan raacaynay qoraal hada jeer calaamada lagu talagelin wax qoraal la raaciyo laakiin waanu raacinay waxaan u aragnay ama ay runtii qayb ka qaadanaysa wacyigelinta oo aan mar ka sabadee aan loo taagnay dadka TV-ga ma wada daawadaan saxaafada laguma wacyigelin kulli faaqan calaamada noqoto marka hadda jeer calaamada tiidhiga waxay ku dhacdaa goobaha meelaha jidku ciriiri ka yahay ama halka calaamadii ugu horeysay wadada ardaydu ay ka gudbaysay waa la isku lamaaneeyaa oo waxa weeyaan inuu xawaare ugu
taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka taliya Faysal Xiis ayaa ka hadlay qorshaha cusub ee wadamarista nidaamka Somaliland ee caasimadda Hargeysa waxaanu tilmaamay labada wado ee laga dhigay mid galbeedka iyo tabariga u socota in ay fududeeyeen samxadii magaalada gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaanu intaasi ku daray in looga baahan yahay dareewaladu inay u hoggaansamaan calaamado ay ku sameeyeen wadada kuwaasi oo tilmaamaya hadadka ay kala marayaan kuwa aan laga gudbi karin kuwa laga leexan karo iyo dhammaan calaamadahaasi isagoo sheegay dareewalka uu ixtiraami waaya calaamadahaasi in la ganaaxi doono كان wanaagsan idinka wadiga arkaya waxa sabaxada ma jiraan calaamadihii laba taal sameeyay wasiirka arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka booliska managa hagaajinay waa kuwa wadooyinka socda tasaha lagu dhaqmo sabaxadii way raatay islaamka bawr soo socdaan saasa wanaagsan waxa weey darwalintu waa inay calaamadaha raacaan hada jeer wadada waxa lagu arkaa waa calaamadaha ninkii calaamadaha meesha lagu xadgudba ganax buu mutaysanaya qaar kamid ah dareewalada isticmaalaya wadadaasi ayaan wax ka weydiinay dareenkooda iyagoo cabiray sida ay la tahayna waa kuwan aad buu yeelay curayska runtii waxay noqotay wadada ka heer saraade caalamka kale aad wanaagsan calaamadaha wadooyinka lagu dhajiyay tilmaamaya jooyinka loo kala soconayo ma isticmaali doonaan dareewalada aad yaad horta aad baan ugu mahad celinaa sakariye oo aad uga isticmaalay calaamadihi waxa iyo dhamaanba xukuumadda wixii ka gacan siiyay waxa kamid ah dareewalada isticmaalaya wadadan la kala bedelay waxaan arkayaa oo ay dadkuna wada arkayaan oo qof waliba ay taabatay inay wadadani saxmadii aan ku jirnay aad iyo aad u yaraysay waxaan umada iyo shacabka iyo dareewalinta ku waaninayaa inay sharciga u hoggaansamaan calaamadahan lagu dhajiyayna ay akhristaan oo ay eegaan qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo kula kulanay wadada bartamaha wadnaha caasimadda Hargeysa ayaa iyaguna ka dareen celiyay nidaamkan cusub iyagoo soo dhaweeyay isla markaana ku tilmaamay mid horumar u horseedi kara Somaliland waxa kormeer ku soo maray jidka u dhaxeeya Hargeysa iyo Berbera oo ay ka socoto hawsha dhismaha calaamadaha cusub ee wadooyinka lagu sameeyo maryaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland Professor Hassan Ali Ismaan oo faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada Somaliland maanta halkan waxaan joognaa in aan bilowday maanta calaamadayntii ama calaamadihii jidka traffic signs la yiraahdo ama calaamadaha jidmarista oo meelaha la isku dhaafi karayo meelaha la isku dhaafi karay gooladaha meelaha waxoo dhan wada ku yaameen wadada isku Berbera Hargeysa iyadoo hadii Allah yarda feeska labaad aan marin doono ranjigii kala qaybinaya wadada hareerahana ka siiyay maartay isku dhamaanayo ilaahay idinkii wax weeyaan waa horumar aan isleenahay maanta mar kale hadana hadii jidkii la bilaabay bal iyadana hal raaco isku wada dhameystiro calaamadaheedina loo dhameystiro waxayna runtii tahay arrintaasi himilada weyn ee dalkeena iyo dawladdeena iyo xukuumaddeena ay ka qabto inuu dalku qurux badnaado oo u ekaado calaamadaha adduunka uu leeyahay jidadkooda ay yeeshaan maanta waa arkaysaan runtii waa wax lagu faano oo wax lagu farxo insha Allah markuu dhamaado fiiska labaad waa arki doonaa inay wadadaas si fiican u soo baxdo oo quruxdeeda yeelato insha Allah darawaliinta runtii soo jeedin lahaa inay u hoggaansamaan calaamadaha meesha ku taala ee hadda aan ku sameeyeen oo ah ninkii arka calaamad halka baabuur kuma dhaafi kartid inaad ku dhaafin meeshii dowladda ku soo dhow ku arkan oo iyo isbeddelkiisa yareeyo uu si fiican ugu hoggaansamo waxaan rajeynayaa wadayaasha baabuurtu inay yaqaanaan akhriska calaamadaha inay u hoggaansamaan waan aad baan ugu rajeynayaa ciidanka nabadgelyada wadooyinka inay ku kontroolaan wadooyinkaasi waa kuwii xaqa sii sheegay inuu shaqo inay ku keeneen ninkii u hoggaansami waayay uu gelayaa shilku gelaya dadweynahana waxaan iyagana runtii u soo jeedinayaa haddii ilaahay boorinaya inay ilaashadaan hantida waa calaamadaha meesha ku yaala waa hanti qaranku leeyahay bere la iska taagtaagay bere meel iska yaalla maaha waxa weeye waa hanti qaran weeye waa hantidii ummadda weeye in la ilaaliyo oo wixii wax gaadhsiinayaba laga dhowro oo ciddii waxaan ku dhahdaa dhibaato u geynaysa laga celiyo la soo ribood garay haddii aan wax laga qaban karin insha Allah tacaala waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celiyo shacabka iyo dadkaba iyo darawalladaba runtii inay u hoggaansamaan waan farayaa haddii ilahay insha Allah. Assalaamu calaykum.
يا سكاك عشرين هوشن عدس كمان كاشن روتي مشروع واحد إسكال أرنية وكالة هرمونية ودوينكا أيام مشروعا كل ليس وحا كونتراكت وقاعد شركة ساين فاكتوري 100 كيلومتر وهرية ودوda بربرة iyo Hargeysa isku xireysa tadamana hadda la bilaabo jeedka la bilaabay markuu dhameystiro iyadana waa la sameeyay